warshada Idil waa warshad ku cusub dalka Somaliland. warshadani ayaa waxa ay maanta carwo ganacsiyeedkii laga furay magaalada Hargeysa ay ku soo bandhigtay saliid cusub oo ay dalka keentay iyadoo ay warshadu tahay warshad aan hore looga arag dalka. haddaba Mustafa Maxamed Cabdi oo warshada Idil u qaabilsan qaybta suuqeynta ayaa waxa uu ka waramayaa bal warshadani iyo siyaabaha dadka ugu adeegto. walaal carwada waxaan ku soo bandhignay maanta haddaanu nahay Idil warshadaha wanta ugu waaweyn saliidda. warshadani maanta way cusub tahay waa hadda insha Allah 3 sano ka shaqeynay maanta ayay gabagaba tahay. waxaan u soo bandhignay dadka inaan u keenay warshad lagu sameeyo sunflower oil oo wadankooda lagu sameeyay lagu farsameeyay caafimaadkooda la hubiyay. taanu maanta ummadda u soo bandhignay waa taas inay ummadda dhammaan Somaliland ama dariifyada Ethiopia insha Allah laga raysan doono wixii banaanka inooga imanayay ee inta badan aan caafimaadkiisa la hubin. taasaanu maanta walaal u soo bandhignay haddaanu nahay Idil saliid caafimaad qabta oo sunflower kumanigay waa balaaray waxyaabo kale waanu keenaa laakiin maanta taanu carwada kaga qayb galayno waa warshada weyn ay idin muuqata oo sunflower soo saaraysa lagana raysan doono wax badan oo aan caafimaadkooda la hubin. erigii madaxweynaha mar walbana isticmaalayna inaanu wax caafimaad qabo ummadda u keeno. madaxweyne waxaanu ku ballan qaadaynaa haddaanu nahay Wehelka ama Idil inaanu dhammaan ummadda Somaliland ka hagabtiri doono wax caafimaad qaba oo wanaagsan. madaxweyne hadalkii aad lahaydna si toos aan u qaadanay insha Allah waxaanu rajaynaynaa inaan ummadda wax caafimaad qabto u keeno. waa Maxamed Xuseen Ibrahim Zamni News TV magaalada Hargeysa.